maamulka ardayda iyo macallimiinta dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Al-Anwaar X Dhama Yaasiin Cartan ayaa waxa ay munaasabad duco iyo sidoo kale dhiirigelin isugu jirtay ay xarunta iskuulka ay ugu dhigeen ardaydii ka qayb galay barnaamijyadii tartan aqooneedka bisha Ramadaan ee ka baxayay telefishinka caalamiga ah ee Universal. Ardayda ka qayb galay tartamadan ayaa lagu dhiirigeliyay guulihii muuqday ee ka soo hoyeen tartamadan oo qaarkood ay ku guuleysteen. Ugu horreyn waxaa munaasabada ka hadlay Ustaad Saciid Axmed Fagaas oo ka mid ah maamulka dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Al-Anwaar. sababaha maanta iskugu imaanana waxay tahay kulan oo duco iyo mahadcelin iyo dhiirigelin aan ugu talagalnay inaan u sameeyno ardaydii iskuulka hoose dhexe sare Al-Anwaar gaar ahaan ardaydii tartamayaasha tartan iskuma jira tartanka Universal TV runtii waxaan rabnaa mahadceliyo Universal TV iyo gobolka Banaadir oo taabagelinaya tartanka iyo jaamacadda Muqdisho su'aalaha aad ka quruxda badan soo diyaariyaan. kulankan maanta waxaan ugu talagalnay inaan u mahadcelino ardaydii kaalmaha koowaad galeen dabcan iskuulku wuxuu ku soo biiray Universal 18 bishii 2018 19 wuxuu galay kaalinta saddexaad 22 kaalinta koowaad 23 kaalinta koowaad 24 kaalinta koowaad waxaan la ka rajaynaynaa in kaalintaas koowaad aan sii wada doono insha Allah bidnillah kariim. waxaan mahadcelinayaa halyeeyadii Al-Anwaar ardaydii iyo maamulkii iyo macallimiintii hawshaas soo abaabulay oo ku soo dadaalay ardayda. heerarkii kala duwan ee tartamadan ay soo mareen gaar ahaan juhdiga iskuulku ku bixiyay ayaa waxaa ka hadlay Ustaad Axmed Suleymaan. Anaa kuma tartano maxaa lagu soo dhigay waxaan barnaa ardayga ah maadaama ay tahay form 1 form 2 form 3 in cashirkiisa cashir ka baxsan la weydiiyo tusaale form 3 waay inuu ku tartami karo cashir ah form 2 form 1 isagoo form 3 na weydiin karno su'aal form 1 xisaab ka shaqeyn karo oo weydiin karna lixaad oo ka shaqeyn karno sida darteed waxaa haysanaa arday dhameystiran oo xilli walba tartami karo. ardayda looma soo xulo kaliya waxaan dhahnaa yaa tartan diyaar ah qof la qasba ma jiro qof walba waxaa lagu keenaa rabitaan tartankan iyo codsi. qaar ka mid ah ardaydii ka qayb galay sanadihii la soo dhaafay barnaamijka tartan aqooneedka ayaa iyaguna ka hadlay dareenkooda. sidoo kale waxaan ka mid ahay ardaydii ugu horeysay ee iskuulka kaalin koowaad ay u keentay. waxaan dhihi lahaa marka dadkii fikirka keenay oo ugu horeey maamulayaashii macallimiinta in ardada fasalada kala duwan in la weydiiyo waxaan dhihi lahaa waxyaabaha horseed ku ah in yani guulaha fara badan oo hadda aa keenay waxaan sii dhihi lahaa maamulayaashii macallimiinta ku dhiirgelin lahaa in arrintaas ay sii xoojiyaan iyo sidoo kalena يعني أرضنا يعني أو ترتمي سئين إسكوليت فرنادان. وحن كمد هاي أرضي لو كن لواتن إلا ودي لا تسده هذه جوليستي أو هذانا إسكول كمعلن كأه أو قدومين كأه نك أرضي ذا وحاربنا مركا أرضي ذا مركا ترتن أهان لو درارنا يو أو ريري اللي قد جايو وحن ينا أرضي لحظة ذا جروب أو قيبنا يعني ويران أفر جروب كدقنا لحظة ذا وترتم لو قبتا ayaga marka dhaxdo tartamo ayadoo cadaawad ahayn oo wax loo tartamayeen ay tahay aqoonteena iyo waxbarashadeena heerka ay marayso in aan ogaano marka tartankaasi markii la isku dhufto oo dambeyntii hal group ka soo baxay ama laba group ki kaalanta koowaad galay iyo la kaalin labaad galay awaal marin la siiyaa maamulkana marqaatu ki yahay marka intaas inta u badan iyo wixii macallimiinta ay soo siiyeen aabadana ku guuleysana waxaan soo dhiso beeskeena salkeena soo dhisan waa macallimiinta guriga marka la dhisaayo afartiisa dhinac oo tiirarkiisa shul lagu dhisaa kuwa hoosena waxa waaye ama wixii saqafkii wixii kale waxa waaye wax iska jiraan laga dhisaa aniga marka beeskeena tiirarkeena la soo dhisay wixii dhaxda naga soo maran anaba iska celeyno marka yani sanadka iskuulka saddex mar oo kaalin soo galay labadii sano ardayda naga horeysay alxamdulillah ma sha Allah Allah ka abaal mariyo waana la dardaarmeen marka baxayaan wax xasuusta waxaana la dhaayniyo hadda anaga waa baxnay xilkan cid uu saaran yahay oo mas'uuliyaddan qofkii saaran tahay idinka waa marka waana la dardaarmeen waana la taliyeen taladoodii iyo dardaarankoodina waa qaadanay kaalintii iyo waajibka ayna saaran waa ka soo baxnay Allah subhanahu wa ta'ala lagu macaabaynin waliba waxa mudan yani oo in la sheego aan rabaa inaan xasuusiyo maamulka macallimiinta sanadkan wuxuu ahaa sanadkii aan ugu fiicneen haddii aan sanadii hore naga fiicneen marka sanadkan waliba waxyaalahan ku xasuusto waxa kamid ahayd su'aalihii dhammaan oo shanta tartan aan soo galnay shan wareeg tartanay ilaa finaalka ka qaadaynay shantii wareeg waxaan xasuustaa in afar su'aal oo kaliya su'aalihiina la weydiiyay dhammaan ay ku laabatay dhanka guddiga oo su'aalaha soo diyaarinaya waxaan halkaan soo istaagay inaan u hambaliyo saaxiibade oo sharaf ay inoo tahay inaan sumcada halkan ku fadhino
ee ayaga sabab u yihiin waan ugu mahadcelinayaa dadaalka ay intaas soo galeen anigana waxaan halkaas ka sii wadi doonaa dadaalkii ay intaas nooga tagteen. Ustaad Maxamuud Cabdi Daahir ayaa madasha ka jeediyey kelmad baraarujin ah. waxaan leeyahay ardayahay waad mahadsantihiin markaan af Soomaali ku sheegno waxa waaye waad mahadsantihiin haddii afka Oromada aan ku sheegno waxaan dhahaynaa galatome haddii afka Talyaaniga aan ku sheegno waxay noqonaysaa grazie molto bene English waxay ku noqon kartaa thank you very much indeed haddaan fiirno Swahili